khaatimada allah noo suubiyo waxaa idin hayaa maanta nin caan ah oo caan dhalay oo runtii aad wada taqaanaan haddana xil weyn inoo hayaba bal awal wuxuu ahaa sida tan quraanka ka jeesashadiisa khasaaradiisa uu leeyahay ayaan ka soo sheekaynay haddana wuxuu marayaa sidaad wada aragteenba si markaas iyada inaba aanan caadi ahayn xaaladdu ay farax ka baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala hawadeenna iyo nafteenna ku raac ilaahay nagama dhige haddana sida tan ayuu marayaa ga ahaan inaan ceebaha muslimka ah annagoo ah bili aadan ka samaysan ceebo badan leh inaan dadka ceebahooda faahfaagayna nagama ahan laakiin waana u qaata ama waanaha u qaataba waxaan leenahay wasiirkeena koonfur galbeed mudane xilkaaga waa istaahishaa hase ahaatee laakiin culumanimadaadii iyo waxaad wadatid inaad isku wadataa fiicnaan leh laakiin ha ku darin egshimadan hadda markaas iyada baraha bulshada lagaa soo dhigahayo oo markaas iyada qaato muxumo ka imaanayso oo markaas iyada naftaada iyo shaydaanka ay kaa qaalib noqonayaan ama markaas iyada maxaa la yidhahdaa ay ku horkacayaan bal ila daawada fiidiyowga maanta ay inoo haayo oo markaas iyada aan la yaabay bal daawasho wanaagsan waa clip yaro gaaban waad ujeedaan wasiir Ilyas ahaana sheekhi hore markaas iyada ay dad badan bulsho Soomaaliyeed iyo ummad badan oo jahli ku jirto ka caawin jiray dhanka barashada Qur'aanka iyo waxyaabo badan ee diinta ku saleysan ka caawin jiray maantana heerkan maray adduunyada u jeedin waa sidaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa muqallib alqulub qulubtana isaga ayaa gidgidiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubta noo hagaajiyo share garay fiidiyowgan runtii caanimo kuma raadina laakiin waxaan rabaa in furaha noloshaada dhanka inta wanaagsan inuu gacantaada Ilaahay uu ka saarin ayaan adna kugu duceynaa anigana aan ku duceysanayaa bal fiidiyowgeyga waxaan rabaa intaas idinla wadaago salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatuh flowgan hanaga iloobin haddii aad Facebook naga daawanaysid barta aan ku leenahay YouTube kana subscribe inoo saar thank you